72 saacadood waa waqtiga ay Washington u qabatay China si ay u xirto qunsuliyadda ay ku leedahay Houston. Shiinaha ayaa sheegay inuu qaadayo tallaabo falcelin ah oo laga maarmaan ah si uu uga jawaabo dandaansiga siyaasadeed ee halka dhinac uu wado. Wei oo ah qunsulka Houston ayaa sheegay in eedeymaha Washington ay yihiin been abuur, waxaana ku tilmaamay kibir iyo isla weyni. Danka kale warbaahinta Shiinaha ayaa sheegaysa in Mareykanku uu ka aargudanayo Shiinaha kadib markii dawladda Shiinuhu ay soo saartay sharciyo cusub oo ka dhan ah diblomaasiyiinta Mareykanka ee ku soo laabanaysa Shiinaha. Amarkan ayaa ah in diblomaasiyiinta Mareykanka laga baaro dhammaantood DNA-ga si loo ogaado inay qabaan xanuunka coronavirus iyo in kale. Washington ayaa diiday oo ku tilmaamtay in Shiinuhu uu rabo inuu ogaado DNA-ga diblomaasiyiinta Mareykanka. waxaa jira warar been abuur ah oo lagu baahiyay internetka kuwaas oo sheegaya in Shiinuhu diidan yahay soo laabashada diblomaasiyiinta Mareykanka, balse kaliya waxaa la amray in laga baaro COVID-19. waxaa la saadaalinayaa in falcelinta Shiinaha ay noqon doonto in iyaduna ay xirto qunsuliyadda Mareykanka ee Hong Kong oo ay ka howlgalaan in ka badan 1,000 howlwadeen. Shiinaha ayaana horay ugu eedeeyay inay yihiin unugyo wax basaasa.